بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ما أنت حين رمينا كان الصنك إيو حيوان لقدها كحسن قرآن كريم إيو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنت كذا الله حين رمينا إن أيضا راعينا سيد أقوى ناكسن اللي وقفة إيسان كرو دنيا هرمت الله صعدان إنترنت كان مركز تيجي إيو تكنولوجيا دان أصلا إيو حيوانها مهم بتاعين لو وقفة إيديسكو بشهر رمضان هذيك استعمال التكنولوجيا دي إنترنت iyo waxyaabaha ay sidoo kale qasab ka tahay inaad iska ilaaliso oo waqtiga lumiska badan ku keenay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa kitaabul aziz ya ayyuhal ladina aamanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun halkaas waxaad ka garanaysaa soonku inuu ummadda islaamka ee muslimiinta waajib ku yahay ma aha wax ikhtiyaari ah qof kasta oo muslima waa laga rabaa marka hadii uu laga helo shuruudaha soonka uu leeyahay sidoo kale waxa jira ahadiis nabiga la wariyay hadiiskaas uu leeyahay ahadiis qudsi oo ilaahay leeyahay as-sawmu li wa ana ajzi bih soonka aniga iskale aniga ayana awaalamid sabixinaay mana cibaadadka kale oo dhan ilaahay iskale asana awaalmintooda bixinaay laakiin soonka wuxuu uga duway kuwa kale waa inta la laabay waa la yaqaanaa qaar waxa la laabaa 10 qaar labo qaar ilaa 700 laakiin soonka inta la laadkiisu uu yahay ama ajirkiisu uu yahay lama yaqaano ilaahay ayaa yaqaana oo si gooniya kuuga amal marinay hada si sax ula timaado oo ka tagto waxyaabaha soonka buriya waxyaabaha soonka ajirkiisa yareeya dad intaas ka tagto ilaahay amal marin gooniya oo cid kale aysan la aqoon ku siinaya sidaan ognahay hada internetka ayaa meel kasta yaala internetu way ku faafto guriyaha dhamay noo yaalaan sida darteed maxsee uga faa'iideysan karnaa inagoo isticmaalayna internetka iyo teknoolajiyada Ramadanka oo uga heli karna ajir badan waxyaabaha aan uga faa'iideysan karno waxa kamid ah waxa jira applications Quraan oo aan akhrisan karno anagoo meel kasta joogno telefoonada ugu jiraan jidka anagoo marin anagoo gaariga saaran akhrisan karno sidoo kale waxa jira inaan daawo karno tafaasiirta iyo muxaadarooyinka diiniga iyo aan YouTube-ka iyo meelaha la soo dhigo applications aan ka daawo karno anagoo isticmaalna internet sidoo kale waxa uga faa'iideysan kartaa internetka iyo teknoolajiyada applications xasuusin ah oo aad ku xidhan karto telefonkaada oo ku xasuusinaya salaada iyo waqtiga aad u baahan tahay inaad soo kacdo xilliyada salaada isku xiranaysa xilliyada kale ee habeenkii saqda dhexe inaad soo kacdo ku xiranaysa maadaama bishan ay tahay bil aad u muhiim ah oo markaas ay isku soo marin fursad dahabi ah hadda ku soo martay ay tahay bii ilaahay ku soo gaarsiisay sanadkan inaad si fiican uga faa'iideysato waxyaabaha ay tahay in la iska yareeyo ama laga fogaado inta lagu gudo jiro bisha Ramadaan waxa kamid ah waqti kulminta baraha bulshada sayna ognahay dhamaanteen waxaan isticmaalnaa baraha bulshada waqti badan ayaan nooga baxay saadafad waxa haboon inaanu iska yareyno waqtiga ama aan joojino go'aan ahaanba hadii ayna jooji karin xitaa inaan waqti yar ku bixnaa sidoo kale waxa muhiim ah inaynu ka fogaano daawashada muuqaalada aan faa'iido lahayn iyo dhammaan waxyaabaha malaayacniga ah maxaa yeelay soonkaada ayay dhibaato ku yihiin ajir badan oo aad heli lahayd ayay ka hor istaagayaan ama waxaaba suuragal ah soonkaada inaad waxba ka faa'iidin gaajo iyo oon maahan maxaa yeelay waxa jira ahadiis nabiga la wariyay kaleey salaatu wasalaam oo ka sugan oo ahaa man lam yadac qawla zuur wal amal bih qofka aan ka tagin hadalada bilaa macniga ah inuu waxba ka faa'iidin soonkiisa ama uu ilaahay agtiisa waxba ku lahayn sida dadka soonka waxa loo baahan yahay inaad ilaaliso wax badan oo ku xeeran oo ah inaad ka tagto waxyaabaha dhan ee malaayacniga ah si soonkaadu uu noqdo mid ilaahay agtiisa aad uga hesho ajir badan oo dadka ilaahay abaalmarinta goonida siinaya aad ku jirto gabadha soonku waa waajib qof kasta ayana laga rabaa inuu la imaado oo laga helo shuruudaha soonka internetka iyo teknoolajiyaduna waa qalab aad u adeegsan karto inaad soonkaada ku kaashato aad ajir badan si aad u hesho